السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanaswada kram maanta waxaan ka hadlaynaa 10 qodob oo 10 shay ama 10 dabeecad oo naga hor istaagayaan happinesskeena ama farxadeena qodobka ugu koowaad waxa waaye lack of self love qofka haddii isjeclayn isaga it's really hard inay happy noqoto qofka hadduu naftiisa jeclayn ma farxi karaayo soo naftaada inaad jeclaatid waxa labaad waxa waaye complaining haddaa maanta dhan cabaadaysid waxa waaye cabaadka badan ma fiicna farxadaada u hor istaaga midda saddexaad blaming haddaa dadka eedaysid dadka eeda badan iyo kaneh ma farxaan because ma farxi karaan maanta dhan qof kastee waxa ay ku eedayaan inay farxadooda hor istaageen so blaming is not wax oo healthy ah maaha mid kaleeto qofka oo slave for their fear ah haddii aa cabiid u tahay cabsidaada maanta dhan ay cabsi wax kasta kaa reebaysa meel ma gaaraysid qofka oo u baahan qofka ku mashquulsho ama baahida u qabto inay quruxsanaato qofkaasna farxadeeda ma farxi karayso because waa mashquulsan tahay maanta dhan maxaan suubiyaa saa u quruxsanaada si oo qofka ugu quruxsan adduunka haddaa ku mashquulsan tahay then meel mala gaaraayo mana farxiisid because ma gaaraysid the more aad dadaashid si aa u quruxsanaatid the more oo ay kugu filnayn quruxdaasito qodobka shanaad waxa waaye ama qodobka lixaad waxa waaye dadka oo the wrong people la hang out garayaan so circle oo waxaad ku jirtid dad oo valuegaaga oo hadafka yani hadda jidka ku socotid oppositekiis ku socdaan haddaa la hangi out garaynaysid meel ma gaaraysid mana farxisid because dibay ku celinaya midda todobaad waxa waaye being close minded waxa waaye inay qofka maskaxdeeda furnaato dadka maskaxda yariiska la dhaho ma farxaan because you have to ina ogashahay fikrado cusub inay maskaxdaada soo gasho wax oo adi comfortable ku ahayn inay maskaxdaada soo gasho ina also yani ku fikiri kartid at least xataa haddaa yani maybe inaadan ku raacsanayn qofka laakiin at least ka dhagayso yani ku fikir consider garay haddii shaqay weyse ma shaqaynin laakiin inaa waxa waaye open minded ahayd it is very important negative self talk wax badan aan ka hadalna negative self talk waxbaa dadka oo maanta dhan wax xun isku sheegayaan oo ma fiicni ma quruxsani wax ma ku fiicni meel ma gaaray dhahayaan dadkaasna dad farxayaan ma aha also dadka midda sagaalaad waxa waaye dadka oo markay wax suubinayaan waxa lay ku samaynayaan lacag inay ahaato wax kasta ama ani maxaan ka helaa dhahayaan haddaa wax lilah u suubihaynin haddii aa sadaqa fi sabiilillah aa baxsanaynin meel ma farxisid because wax kasta waxa waaye waa inaa qiimo ama lacag aa haddaa hordhigaysid wax fiican ma aha and midda ugu dambeysa oo important waxa waaye lack of commitment dadka oo commitment waxaa dhahaa qofka oo go-aanka lahayn go-aana inaa commitment waxa waaye waxaana suubaya haddaa dhahad inaa ku adkaysatid jid adagoo noqonaa wax kastaa dhici kara laakiin inaa ku adkaysatid ilaa aa meelka gaartid so lack of commitment waaye tobankaas jee waxay ahaayeen waxyaabaha oo qofka dabeecadda xun oo qofka happinesskiisa ama farxadiisa hor istaagaan haddii aa kuwa kamid ah haddaa naftaada ku aragtid please isku day inaa iska bedeshid waa mahadsantihiin iyo waa naswada kram